السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa laga hayaa imaam ibnu jawsi inuu yidhaahday اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك oo ah ka qari dadka. maxaa laga qarinayaa dadka? waxaad ka qarisaa saddexdan arrimood: dahabak wadahaabak wamadhabak. mid kastana haddaynu gooriniisa u sharaxno, dahabak waxa weeyaan inaad dadka ka qariso xoolahaaga, xaaladaada iyo wixii nimcada saa'ido ilaahay ku siiyey. oo haddii aad xoolo leedahay, waxaa suuragal inaad la kulanto xasad amba damaacinimo oo ay dadku iska damcaan xoolahaaga. haddii aanad waxba haysana, waxaa suuragal inay dadku kuu dhibraan, laakiin qiimahaagii iyo qadarkii markii hore aad agtooda ku lahayd uu hoos u dhac aad uu ku yimaado, isla markaana ay ku arkaan qof liita. dahaabak oo kelmada labaad ahna waxaa looga jeedaa in aad dadka ka qariso waxyaabaha aad doonayso inaad samayso. tusaale ahaan, waxaad doonaysaa in mashruuc ganacsiyo cusub aad samayso. marka haddaad mashruuca ganacsiya saad u samaynayso aad dadka uga sheegayso, waxaa laga yaabaa in fikradaada lagaa xado oo adigaagii mashruuca iska lahaa mid kaloo bara ku dhaafiyo lagaa furtaba, iyo waxyaabaha kale iyaguna u baahan in la qariyo. haddii aynu daliil xagga qur-aankaa soo qadanana, waa kii nebi yacquub ku lahaa inankiisii yuusuf calayhim assalaam bacda acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. aayaddaasoo ugu sheegaya nebi yacquub inankiisii yuusuf inaanu uga sheekayn riyadii uu ku riyooday walaalihii, isaga oo ka baqanaya inay xaasidnimo ka dhalato arrinkaas oo ay dhagar u maleegaan walaalkood. marka dambe ayuu la dardaarmay inankiisii yuusuf oo ku idhaahday, ha uga warramin walaalada waxa aad ku riyootay. markii dambena wixii dhacay waad ka war haysaan, laydinka sheekayn maayo baan filayaa. haddii dhinac laga eegana, markaa waxa uu kasii baaraantegay uga digay markii hore nebi yacquub inankiisa yuusuf waxay ahayd riyo uu ku riyooday oo keliyata, ee may ahaynba wax dhab oo dhacay. intaanaynu qodobkaa dhaafin, waxaa jirta aayad kale qur-aan ku jirto ah wa amaa binicmati rabbika faxadid. haddaba si aan isku waafajino labadan aayadood ee qur-aanka ka mid a, aayaddan waxay sheegaysaa inaad nimcooyinka uu ilaahay ku siiyey aanad inkirin oo aad isigoo keliyata ugu mahadnoqdo, isla markaana ay kaa muuqato nimcooyinka uu ilaahay ku siiyo aanad ahaanin mid ka saboola adigoo nimcadii haysta haddana aanay kaa muuqanin. tusaale ahaan, hadduu ilaahay xoolo ku siiyo, inay xoolahaasi dharkaaga iyo gurigaaga ay ka muuqdaan weeyaan. dadka masaakiintaana aad wax ka siiso nimcada uu ilaahay ku siiyey. kelmadda saddexaad ee u dambaysay madhabkana haddaynu sharax yaro kooban ka bixinno, waxa weeyaan in aanad weligaa la talin qof aad ogtahay inaanu taladaada waxba ku qaadanayn, oo haddii aad wax u sheegtay haddii kaleba ay iskugu mid yihiin, iyo inaanad naftaada in badan dadka uga warramin waxaad jeceshahay iyo waxaad necabtahay adoo kala saaraya. run ahaantii inaguna ka bulsho ahaan haddaynu Soomaali nahay, dad aad u hadal badan baynu nahay oo meel kastood martiyo meel kastood joogto waxaad arkaysaa dad sheekaysanaya un. qof aamusan soo hel haddaad istiraadana, waxaa laga yaabaa in 200 ee qof aad soo martaba 2 qof amba qof keliya aad ka aragto isagoo ka aamusan. haddaba intaanan mawduuceena soo xidhin, waxaan kaga tegayaa kelmaduu Cumar bin Khadaab yidhaahday radiyallahu canhu, isaga oo ka hadlaya aamusnaanta iyo faa'iidada ay leedahay buu yidhi: nadimtu cala alkalaami maraatin wama nadimtu cala asamti mara. oo uu macnaheedu yahay, marar badan baan ka qoomameeyey hadalla aan idhaahday, laakiin weligay hal mar kamaan qoomamayn aamusnaanta. muuqaalkeena maanta xaggaasu ku egyahay, waxaana idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.